saac ee lasoo dhaafay xaaladdu kama soo darin dhammaan degaamada sidii ay ahayd 24 saac ee ka horreeyey kama soo darin ilaa hadda weli waxaa ugu dhibaato badan oo khasaaraha ugu badan uu dalka ka dhacay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo runtii dad gaadhaya 300,000 oo qof dad ka badani ay ka qaxeen guryahoodii dhammaan wixii ay haysteenna ay ka baaba'een oo ku sugan meel aad u kooban oo Beledweyne duleedkeeda ah marka khasaaraha ugu badan sidii caadiga ahayd ee horena aan uga warbixinay halkaas ka dhacay sidoo kalena waxay fatahaada ka dhaceen Baardheere iyo Beled Xaawo iyo Bardaale oo iyada aan ahayn fatahaad webi laakiin daadad iyo roobab ay keeneen roob daadadu keenay oo ka dhacay marka runtii marka xaaladda horta roobka iyo fatahaadu waa sidaas dowladda Soomaaliya oo guddi heer sare u magacowday ilaa 3 jeerna labadii maalmood ugu dambeysay baaq ka soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo baaq ka soo saaray dadka Soomaaliyeed oo ilaa hay'adaha dowladda ee baarlamaanka iyo xukuumadda ay kamid yihiin ugu baaqay inay contribution bixiyaan sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu markii guddiga soo saarayna ka hadlay shalayna uu soo saaray statement cad oo dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo cid walba oo gacan geysan karta ugu baaqaya inay gacan ka geystaan guddiguna uu saasoo kale golaha u yimid stuudiyaha si live ah ummadda ula hadlay marka xaaladaas update-ka isdaba joogga ahayd ee dowladda Soomaaliya ay ugu gurmanaysay dadka kale ee Soomaaliyeed ee ganacsatada leh ee shacab leh ee waxgarad leh iyo beesha caalamkana ay ugu baaqaysay in ay gargaar geeyaan meelaha dhibaatooyinka taagan iyo dadka u gurmadaan taas baan wadnaa runtii dadku waxay u baahan yihiin taakulayn dowladdu wixii karaankeeda way geysay inkastoo airportka Beledweyne uu naga xidhnaa 2 maalmood waxaa nasiib wanaaga inuu hadda dib u furmay oo galabta naloo sheegay in airportku furan yahay beri waxaa tegi doona wafdi ballaaran oo ay xubnaha guddiga iyo dad badan oo ka socda baarlamaanka Soomaaliyeed ka socda dadka technicalka ee wasaaradaha ku shaqada leh ayaa beri tegi doona oo gargaar wada sidoo kale dowladdu waxay abaabushay beesha caalamka oo iyadana gargaar fiican dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga iyo dowlado kale oo badan iyo hay'adaha caalamiga kulligood shaqay ka hayaan inkasta oo dib dhacay oo dad dhintay qaabab kala duwan ay u dhinteen haddana ilaa hadda waxa gacanta lagu hayaa oo si wanaagsan u socda u gargaaridda dadka loo gargaarayo iyo arrimaha caafimaadka iyo marka ay dhammaato hadday dhammaato fatahaadda in haddana impactiga dowladdu ay u sii samayso mechanism wixii khasaaraha looga hortegayo marka shaqada gargaarka iyo gurmadku si fiican ayay u socotaa xogta la hayo si fiican ayay u samaysan tahay marka xaaladaasi meel fiican ayay maraysaa runtii waxaan u mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed intii u gurmatay dadka walaalahooda dhibaataysan waxaanu amaanaynaa dadaalka iyo wax ururinta ka socda degaamo badan oo dalka oo ay ku jirto magaalada madaxda dalka ee Muqdisho oo ay ku jirto magaalada Gaalkacyo oo ay ku jirto magaalada Garowe oo ay ku jiraan degaamada Hargeysa iyo degaamada Somaliland meelo badan oo dalka ah dadka Soomaaliyeed isu xilqaamayaan dadka walaalahooda ugu gurmanayaan aad iyo aad baan u amaanaynaa waanuna ku dhiirigelinaynaa inay waxay hayaan la dhaqsadaan waayo 5 cashe soo socota ayaa ah maalmaha ugu daran maadaama dadku wixii ay haysteen ay already isticmaaleen laakiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo isku tashaday la rabaa dadkan marka inay maalmaha soo socda gaaraan marka aad iyo aad baanu ugu dhiirigelinaynaa maamulada iyo shacabka iyo ganacsatada iyo Soomaaliyeed dadaalkay wadaan iyo inay la dhaqsadaan oo u geeyaan dadka dhibaataysan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo meelaha kale dalka ay fatahaadu ka jirto hawadu wali waa rooban tahay waxa wali la filaya roob inay dii doonaan marka dadka Soomaaliyeed waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan kuwa wabiyada agtooda degan inay feejignaadaan oo la socdaan xaaladda biyaha webiga maraya meelo badan oo gobolka Jubbada Dhexe ay ku jiraan
ayaa fatahaad aanu dowladdu isha ku haysaa oo laga cabsanaya inay fatahaad ka dhacdo, laakiin waa inay dadkuna iyo waxgaradkoodu si dhow ula socdaan, dowladduna sidaas oo kale ayay ula socotaa. runtii qof kasta oo mas-uula oo Soomaaliyeed, qof kasta oo waxgarada, ganacsatada kulligan waxayna ku waajiba inaynu dadka walaalahayna u gurmano, isla markaana aan dadaalka dowladdu wado dareenka ay maaragtay ku doonayso inay ku midayso morality-ga dadka Soomaaliyeed inaan la siyaasadayn, oo gurmadkaa dadka loo fidinayo qofba intii uu karo ku daro, laakiin aan la gelin arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale oo moralka dadku isugu gurmanayo wax yeeli karta ayaanu jecelnahay. dowladda Soomaaliya waxay khasnadeeda dhexe ka bixisay oo ugu deeqday ama ugu talagashay taakulaynta dadka ay waxyeeleeyeen roobabka iyo fatahaadu 500 kun oo dollar oo ah inta maanta ka bixi karta ama ay awoodi karto khasnada dhexe ee dowladdu. sidoo kalena dhammaan madaxda qaranku waxay ka go-an inay si shakhsi ah iyo si abaabul ah iyo si dowladnimo ah intaba wixii ay awoodaan ay ka dabageeyaan, oo mar walba shacabkooda ay la socdaan khasaaraha iyo dhibaatooyinka gaaraya oo ay ka jawaabaan. mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladdu sidaad la socotaan, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare waxay already ku dhawaaqeen inay ugu deeqeen dadka walaalahooda ee dhibaatadu haleeshay mushaharkooda bisha October. sidoo kalena golaha wasiirada oo berri leh kulankoodii khamiislaha ahaa ayaa iyaguna jawaabtaa lamid ah bixin doona berri. waxaanu mar labaad ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed waxaysta, dhalinyarada Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed, waxgaradka Soomaaliyeed inay sida ugu dhaqsaha badan ugu gurmadaan meel kasta oo qof Soomaaliya dhibaato ku haysato, dhibaatada fatahaada iyo roobabku, gaar ahaan magaalada Beledweyne oo sida aan sheegay number aad u badan oo dad ah oo baahan ay ama biyo ku dhex jiraan ama meel banaan ka magaalada ka ah ay ku laayihiin cunto ku filan, biyo ku filan iyo hoy ku filan.